عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa madasha shirka guddiga ka talinta gobolka Sool ee 3 ah. waxaan go'aan ka soo baxay guddiga saaka oo kala fadhigoodii ay fadhiisteen uu yahay inaan ugu baaqayno isimada gobolka ka maqan iyo kuwii gobolka u joogayba in la isugu yimaado sabtida subaxa sabtida ah oo aan taariikhdu ay ku beegan tahay maanta waa 16 ay ku beegan tahay 22 bisha in la isugu yimaado magaalada Laascaanood ay diyaar ku wada yihiin baan ugu baaqaynaa gaar ahaan isimada maqan ee hadeer gobolka magaalada gudaheeda ka maqan Laascaanood waa in Laascaanood isugu yimaadaan isimada iyo cuqaashuna waa ku jirtaa inay isugu yimaadaan magaalada Laascaanood. taasi waa baaqan ugu baaqayno madax dhaqameedka isimada iyo cuqaasha inay ku soo wada diyaar garoobaan maalinta sabtida. baaq labaad waxa weeye in nabadgelyada lagu dadaalo oo waxyaabaha qalalaase iyo iska horimaad keeni karaba la iska ilaaliyo muddada hawsha lagu jiro. guddiguna ay hawlo fiican oo dan ah ay wado iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo xagaradka iyo ismadaba ay wadaan dadaalo. marka hadday ciidamada tahay iyo hadday shacabka tahayba in la ilaaliyo wixii qalalaase iyo isku dhac keeni kara oo la taxadaro ayaan ku baaqaynaa. intaasaan dadka ogeysiin lahayn. وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إلهي ما هذا سبحانه وتعالى. وقرأنا حنو محد علينا الشعب كدجامة سول سناج عين سيدي في عنايد أنه باقة وجود شيء ديني أي نوع أقبلان ويحنا نسوي شيء ديني وفليان هذا نوع محد علينا وحلنا هاي حلقنا كسي وضع جزاك الله خيرا جزاء. inta kadib waxaan halkan baaq uga diraynaa maanta golaha dhaqanka isimada maqan iyo cuqaasha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dhamaantood inay ku soo xaroodaan magaalada Laascaanood maalinta sabtida insha Allah taala. ugu dambeyn haday ku darsadaan axadda waxa la yiraahdaa inay ku soo xaroodaan dhamaantood si looga tashado mustaqbalkeena iyo aayaheena uga tashano insaasaan ugu baaqaynaa. waxaan kala ku daraynaa in la ilaaliyo wax kasta oo keeni kara qalalaase oo waxa la yiraahdo iyo isku dhac iman kara dhinac kasta ka yimaado in la ilaaliyo iyadana waa ku baaqanaa si uu noogu qabsoomo waxa la yahay kulanka iyaga insha Allah aan isku imanano muddada aan ku jirno hawshaas. gudiduna way maqan tahay deegaanka iyo dadweynahaba waa maqan tahay insha Allah hana naga warsugto hadii Ilaahay noo billahi tawfiiq. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.